بسم الله الرحمن الرحيم هاد داود يلا halkan waa wadani tv.com iyo barnaamijkii aan ku talagalay ee ahaa koortaga burburka qoyska saameeyay Soomaalida ku nool dacallada adduunyada oo idil waxaan idinkugu soo qaadanayaa barnaamijkan oo barnaamijyada kale ka yara gedisan bal Soomaalida guursato ajnabiga waxa xaqiiqatan ah wiilasha Soomaaliyeed markay ay guursadaan gabar ajnabi ah oo shisheeye ama cadaan ah waxay ultimo qosol laabtaan gabdhaha Soomaaliyeed oo u noqoto hooyo rasmiga ah oo dambeystii ku soo biishubto halka haweenka badankooduba markay la xisaabay aan dhihi karo boqolkiiba 70 ma soo laabtaan oo waa si ajnabiga ugu galeenba waxaan rabaa marka inaan ogaado bal faa'iidada ajnabiga ay leedahay ummadda Soomaaliyeed waa ummad aad iyo aad u dhaqan adag dhaqankeedana uu fiican yahay dhiigeedana uu saafi yahay ummadana ay ku xisaabto dad iyaga boqolkiiba boqol caafimaad qaba maadaama ay asalkoodii ay ahaayeen kuwo ku soo koray caana iyo cad sida awgeeto waxaan rabaa inaad ogsoonataan dadka kale ee ajnabiga ah caafimaadkooda sida Soomaalida oo kale lama dhihi karo boqolkiiba waa boqol haddaba markii aan ogaaday haweenka Soomaaliyeed ee guursada ajnabiga way ka gedisan tahay waxay la kulmaan dhaqan aad u adag oo dhibaateeyo rafaad badan ajnabiga waxa uu ayidsan yahay ama dabeecan ahaanba u aaminsan yahay qofka dumarka ah in ay shaqaysato oo ay sugin waxa ay soo saartana ay isticmaasho wax walba biilasha guriga inta badan ah ee kala qaybsadaan taasina diinteena macaan sida ayna bartay gabdhaha waxa haweenka ah in alla markii mihirka horeba lagu mihirinayo in aan leedahay waxaan qaaday risqeedii oo ay tahay in waxa ay cunto waxa ay xirato ilaa mustaqbalkeedii inaad adiga bixisaa oo iyada aan laga keenin gabadha nooca lagu soo abaabiyay ee diinta macaanna sidaas inoo tustay weyga ayay daba martaa oo aadaa ajnabi kadibna waxaa lagu aqabayaa la yiraahdaa guriga ha ii fadhin kaalay oo shaqee ultimana way ka soo carartaa iyadoo qahar iyo dhibaato intaba tirsanayso xagga wiilasha markii aan eegayna waxay i cadeeyeen in gabadh kasta ay ka nadiif badan tahay gabdhaha Soomaaliyeed kana udgoon badan tahay halka gabdhaha kale ee ajnabiga ahi ay suurar qalaadi ay leeyihiin oo haddii aad eegtaba inta badan qof weyn oo sidoo u dhashay istijama aqaano waa xaqiiqatan soo dhanan inay isbedesho oo soo kala u la soo baxo taasi ayaa waxay dhahaanba waxaan ka soo aragnay annaga ayaaba bedelanaba sida awgeeto waxa xaqiiqatan ah in ajnabi aan lagu waarin laguna nagaanin oo aad ultimo doonayso laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxay noqdaa in ay aad iyo aad ugu rajo go'aan oo ay dhahaan bulshada maadaama ay arrinta ku ogsoon yihiin ma dhici karto in mar dambe aan mustaqbal Soomaaliyeed ka samaysato waana khiyaali ee waxaan dhihi lahaa waa dadaalka iyo adigu ilaahay ku kalsoonaado soo noqdo ayay kugu xiran tahay isku soo wada duub maadaama ummad sidaas ay tahay waxaan kula talinayaa in ay iyaga isku ekaadaan oo ajnabiga iska ilaaliyaan mahadsanidin barnaamijkan koortaga burburka qoyska intan ayuu noogu egyahay intiisa kalena waxaan soo dayn doonaa jimcaha soo socdo insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.